إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين خطبة ما أنتم كسابسن تهي مسألة مهمة وأمة هدان أما هنقدنا أمة إسلامه أما أمة قال هنقدنا أما جنسي نوع كستها هذا آدي يدور بدانه يجعله عدي لقواينا وقيمة بلا أمة أحدث مسألة أيضا ومسألة أنك مسلمين تدي أن هي أن آدي أي وها بونت هاي إن أمضاها كلا كجفي عنانه أمضاها كلا كجدونانه أمضاها كلا نقول أيضا لأنه حي أهيد على ما يصف الوقرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين وأرنت اللي هذا الصدق في الحديث الصدق في الضمائر الصدق في الأعمال قفك إنه كرن شيء حضرك وشيء إنه رن وهذا إنه عملك وقبنا وكرن يهي إنه حاول قلبك يسوي حكجرة وحرنا يهين مسألة أيضا أيان إن شاء الله تعالى يرى المام بدون أيضا كوبا رن حال يرى هذا مركز التعريفين هي تعريف فضم باجرته أما العدينا إلى قيحايو وحال يرى هذا إنه هذا الكأتكو هذا ليسو هي قلبك هذا وحكو آسن هي الشيء قأت المام يسو سدح دايقة إنay noqdaan saddex shay oo iswaafaqsan on kala harin waxba tilmaamaysa waxa iyaga in qalbiga waxa kaga aaminsan tahay kadalika arabkaadana wad ka hadlaysa saddexdaas waa inay hal meel ay ku wada biishubaan hadii qalbigaadu uu dhan u jeeda arabkana uu dhan ka u jeeda waxa tilmaamaysan aad maldahayso ti kale u tilmaamaysid arintaas marka waxay noqonaysaa arin ka fog runtii weeyaan runta aad baa loo yaqaanaa waxay tahay in aad loo sii qeex loo baahno laakiin muhiimadda waxa weeyaan booskay ka joogtaa islaamka ama diinta islaamka xagee ka joogtaa runta waxyaabaha fadaa'isheeda ugu muhiimsan oo cadayna waxa kamid ah in rabbiga tabaaraka wa taala uu ku cadeeyay khasaa'ista ama tilmaamaha ama sifooyinka dadka ahlu iimaanka dadka awliyadiisa dadka asaga uu jannayn doona rabbi tabaaraka wa taala ummadda ayaga tilmaamahooda markuu tilmaamayay wuxuu dhaxda u dhigay as-sidq inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-sa'imina was-sa'imat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إلهي وحود يا رد أنت أيضا شاقني أضوى تقنن وهذا فصل عن أباهنين أنت أيضا ربي وحود يا رد سبحانه وتعالى دم بداف إي أجر آدي أدوين أي ربي وحود يا رد سبحانه وتعالى مركز صدقك إي رمته إن ربي سبحانه وتعالى وكود دم بدافه إنه أجر وكتل من إسجى الكبير المتعال وكتل من ربنا سبحانه وتعالى إنه أدوية هي فضائش يساء عدينا سويان هي عدينا كمد كذلك ربنا سبحانه وتعالى وحو أمري تدك مؤمنين تا إن يرنت دائما ولي قد حالد كست أما فرح سناو أما بمروغيسناو أما بدبها كهاية أما بديف حيسو أما مال عيري كجر أما مال واسع كجر إن ربنا سبحانه وتعالى وحو أمري إن فلنا الشك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رجي saddexda ah saxaabada nabigeena kaleey sallallahu alayhi wasallam rag uu qiimaha badan kamid ah oo kadib dhacay dagaalkii Tabuk ka dhacay 800 kilomitir luway jeeshul usra loo yaqaan aad ku dhibka badan qorraxda iyo kuleelka iyo rafaadka iyo baahida iyo kabalaanta iyo dhibaato badan ay jirtay ragii ka daahay oo kadibna munaafiqiintii beenta ku cudur daaratay aan kamid noqonin nabigeena sallallahu alayhi wasallam ruu sheegeen ragii ayaga ahaa konton maalmood oo waxa way cunaqabatayn la saaray marka laga soo taga ilaahay subhanahu wa ta'ala ragaas meel adag ayaa looga qoray muxuu ahaa quraanka wad garanaysaan waliba kadibna ummadii ayaa lagu tarbiyay at-tarbiya bil ahdath arinta dhacday idacdadaas culus oo dhacday ummadii ayaa lagu tarbiyay oo rabbiga subhanahu wa ta'ala wuxuu ku jideeyay ya ayuha alladheena aamanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin kadalika rabbiga subhanahu wa ta'ala wuxuu ka dhigay runta jidadka jannada iyo wanaaga lagu gaaro ala lisaani rasuulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam
nabigan wuxuu sheegay in runta ay samafal iyo wanaag ku gaarsiinayso samafalka iyo wanaagana in janno lagu gaaro jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lagu gaaraa run ilaan waxaa loo sii marayaa samafal nabiga sal alla alay slam wuxuu sheegay qaacido cajiiba qaacidada maxay tahay wuxuu yidhi qofka kama zuula inuu run sheego uu run ku dadaalo markuu hadlaaba inuu muxuu ah xataa haddii waxay ka fakadaan markiiba intuu naca aad dib u soo laabto qof raran ku istaagay amaba deeb muxuu ku istaagay dhuxul ku istaagay oo kale ka booda kadibna kama zuula arrinta ayada oo mar walba runtii muxuu ku dadaalo ويتحرى الصدق إلى الله أكتب سبحانه وتعالى وكأهاده أما الله قره إنه يهي تذكر بدنا يالك الله قره ويان والنعمة أدوين إخواني في الله مركا وحاول ينقفك إن آدي أدنكاس وحق سارنا أدلة ذا سيكون بعدين يسا أهمية دا رنتنا عدين يسا الشيخ الإسلام ابن تيمية وحوليه هي شر خير كستا وحال غفرة شر كستا وحال فروعة بنت marka arintaas bal aad iyo aad loo muxuu ahaa loo fiirfiiriyo ikhwaani fillah wa arin aad runtii qofka tadabbura oo arinta aad u fiiriyo garan kara weeyaan kadalika runta mushkilad kasta oo kugu dhacda badbaaday kaga tahay culays kasta oo ku soo waajaha waliga isku dayna been sheegto waxa yeelay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu noo sheegay saddex nin oo socoto ahayd kadibna meel buur hoosteeda ah god ah galeen roobkii iyo dhaxantii iyo dabeeshii ka galeen dadka ayaga ahaa ilaahu wuxuu qadaray subxaanahu wa tacaala arrinta ay rabeen arrin aan ahayn ay ku dhacdo oo ah in ay intay ku soo giraan girto jibaal weyn oo ku soo giraan ama dhagax aad weyn oo albaabka ku xira meel ay ka baxaan ay garan waayaan telefoon lama hayo ambulance iyo wax loo yeerna lama arko waxaba yaraatay muxuu ahaa tol meesha ma jooga cid ku maqlaysa lama arko waa buur hoosteed waa meel duur ah hawshu waa dhamaatay marka jid kasta oo la maro wuu xirmay hal jid baa furan marka وهكذا أننا جدك نوفر وكاسجا ولجن دائما وأبدا الطريق المفتوح في الليل وفي النهار وفي الصيف وفي الشتاء وفي كل مرة الباب كان ولجز الحين والباب كان ربنا سبحانه وتعالى هل كي أي مركب وحاول وحي سمين إن ربنا أي أورون الشجان أولي من نول بسوقات أعماش أي سمين تربنا أنت إله درتي سلوقس دي أو إله لورون شيء إن لا صاروري مركب نول بحال حبك سوقات ودني هذا محوها زينة عن ربي وضفت أسكت ضعفي ولي أنا أبواب تدي يهول هذه أنا أنت وجد ذلك أنجاري ننقو يرى هذا وحن كرون شيء لا بدي إذا شئنا بارنمو سمايا وهبين لنا يا عالة تجنا أنت أصلا محو علمه يجوز وينين وأنا سنين علمه أنا محو جديدة يرتضي أنا محو هاي وحسيه قف كلا كان سد حادثنا أمانة إلى الأنت هذه أيوة شيء سنوات آتوا بدن أنتوا حول إلى لي كدبنا وننكي محوها حولها لها شيء ما دي ردوش قي بقولال علي بقولال محو حولها تربنا أيوة مرك فرتك ساري أنت أنا خنشاك كرهن شاكا أمانة إلى لنتهي أهيد ويان مرك إخواني تأيضا هو باب رنتي آديات وين ومهمة إن حوق أسنا الله صار مرك رنتا ما لبضن باي محوها أي جليسة ما لها أي رنتا محوها لوجو بهني وحاجة مهم سن حق النية والنية إلهي سبحانه وتعالى إن لو خنشاكه صلاة كريسة وحتى هي محوها قف توصن ظاهر كاجا قف إلهي مساجد كحرا قف صلاة دي جماعة كده دالة قف وحاول صدق الله بحا لكن قلبي جاجا وإنا أنت أيضا أنت إن مشان سوق جارين كورة قلبي وإنا ربي ورون شاكته قلبك الله بعد حق هذلك مركي حق لقادنا أما باطل كالتورة إن وحاول أين إلهي سبحانه وتعالى ورون شاك وإله درت أوترت هدي أد محوها منكر إنكريسي ودوناك فريسي أما أد سمينيسي أد فريسي عفوا بالقول ودنا محوها قلبي قال بابك لو دنك لو سيجده وارجود الشيء iyo qofkan muxuu ahaa dhulka ku rid iyo wama ila dalika iyo waxyaabo badan ama wixii lamida ayna ma noqonayso way runtii tan saddexaad amalka la qabana waa inuu hadalka iyo amalka waa inay isku dhan u jeedaan qalbigan waa inuu raacsanaado labada ayuu la isku daray ama saddexda la isku darayna waa inay waafaqaan hadi alkitabi wa hadi as-sunnah kitabka Allah subhanahu wa ta'ala tariiqiisa iyo sunnada nabigeena kaleey salaam tariiqeeda waa inay waafaqan wayaan majaalaadka runta loogu baahan yahay kamid ikhwaani fillah waxyaabaha waxa kamid ah sidqiga iyo runta waxa kamid ah qofka inuu ku dhawaaqin waxyaabaha baatilka ah muad ibn jabal radiyallahu ta'ala nabigeena wuxuu sheegay in dadka waxyaabaha waji iyo qorqor iyo si qaab daran naarta loogu tuura ay ugu horeyso arabka wax lagu kasbaday arabka marka in laga run sheego oo baatil aan lagu hadlin ayna waxay kamid tahay waxyaabaha runta awsaafteeda ay kamid tahay ama majaaladkeeda
كذلك إخواني في الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حلو يقان الصادق الأمين سهري وشيء وقت جاهلي وصاصي محوها أي ولد يقانن مركي إسرائيل ماذا الوسو الدجنة أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم وكان رأسا لقريش مركو تجاهر بقركي من كرر الروم بقركوها نبي قلنا ويدي عليه الصلاة والسلام إن أهل كتابهم محوها نصنا كريشتن كايستوها نبي قلنا ويدي عليه الصلاة والسلام ويدي صفات كيسة مركز وحو كويدي رنت يبنتو كويدي من رجاك بدنبا مثل وانين بنتا دباشو مركز يصير بين مشاك رنو شاكا ساسوير وحو مركز يري هرقل بل هذا كذا جيستو وحان اوغادو يري انوسن dadka inuusan been kala fogaanaynin oo dadka inuusan been u sheega uu ka iska ilaaliyo kadibna rabbiga abuurtay subhanahu wa ta'ala uu ka been abuurtay suuragal ma wiir inaad bini aadamkana beenta u sheegin ilaahayna uu ka been sheego suuragal ma wiir marka ikhwaani fillah sifadaas waa sifa nabawi ah oo qiimo badan oo umada qofka runta badan oo runlaalaha ah ayaad u jecel yihiin qofka beenaalahana wala iska dhageystaa uu sheekeynaya waa laga xishoonaya iska dhageyso laakiin qalbiga laga nacladaya waad garan kartaan xabuu sheegi warkiisa isdhaxgali isku darsamaysa hore iska taabani waa kala fujinaya meel kale iska taabani koronto ma wariga kala celinaya war biri uu sheegaya bilay ama qof muxuu ahaa warki beeniyo aad ka daba imaada ikhwani marka waxa weeyeen waa dayq waa ciriiri waa xaraj waa mushkilad marka qofka inuu runta ku dadaalo oo runta ay noo noqoto dhaqankeena ama ganacsi aan ku jirna ama aan culama ahano ama ducaad aan ahano ama arday aan ahano ama aan jiiraan dad isu aan ahano ama siyaasiyiin aan ahano siyaasadda bariyahan waxa loo rogay alkadibu qofka siyaasiga inuu been sheego sax maaha wax jira maaha ayaga arinta ayada ah la aqlan wala shar'an sax maaha alkadhab madmum qofka beenalaha ama siyaasi ha sheegto ama muxuu ha sheegto taajir ama sheekh ha sheegto ama fulaan ha sheegto waligiis waa nin muxuu caaysan waa nin muxuu ahaa madmuuma oo la caayay oo qalbi kastana una allada sida dhabta waligiis loo reer magaaleeyo oo muxuu ahaa loo mujaamaleeyo laakiin sida dhabta wala nacladaya marka ikhwaani arinta ayada qofkii ay khaslad kaga jirta ama qofkii mararka qaar ay ka dhacdo ilaaha oo toobakana subhanahu wa ta'ala lagama yaabo qof beenaala inuu qiimo ka yeesho la 'inda an-nas wala 'inda Allah 'azza wa jalla marka arinta ayada arin aad u culus aan ku dadaalna runta marka si aan liibaan aduun imid akhran oo helna ألا عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال في كتاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين